بسم الله الرحمن الرحيم maadaama koorskeena uu su'aalo interviewga la isku weydiiyay kamid ahaayeen waxaan doonaynaa casharka inaan kusoo koobno 27 su'aalood aan anigu shakhsiyan isleeyahay waa common interview questions ee la isweydiin karo xilliga imtixaanaadka la geliyo waayo imtixaanaadka marka la geliyo laba nooc baa inta badan imtixaanka loo qaadaa midna waa imtixaan written in lagu dhibo ama simulation lagu dhibo mid qaarna waa interview afka laga weydiinayo marka common interviewga la isweydiin karaa maxay noqonayaan marka waxa weeyaan 27 su'aalood oo soo horay ugu horeyn su'aalaha waxa lagu bilaabayaa su'aalo basic sida caadiga ah oo aqoontaada lagu tijaabinayo oo la is leeyahay qofkan muxuu yaqaanaa bal information la iska weydiiyo su'aasha koowaad la isweydiinayo waa maxay what is the difference between router iyo switch maxaa u dhaxeeya maxaa farqiga u dhaxeeya hab waa maxay la iska ka oran karaa marka switchku sidiisaba iyo routerku labadoodu waa network device company doona soo saari kara Cisco soo saari karta Huawei ba soo saari karta wax soo saari karta HP ba soo saari karta whatever it is laakiin maxay ku kala duwan yihiin maxay shaqahaan maxay kala qabtaan number 1 waxay qabtaan horta xagga layer-kana way kala duwan yihiin sida go'aanka uu qaataan way ku kala duwan yihiin shaqada qabanayaan way totally kala duwan tahay marka routerka more fancy su'aalahan waa kuwa iska ilaalinaysid router maxaa tahay casharkeena ku bilaabayna hadii la yiraahdo switch-una maxaa tahay switch waa layer 2 device inta badan wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan broadcasting buu sameeyaa xogtu iska diraa isagoo oo aan go'aan ku qaadanayn cid xogta u diray OSI layer-ka la isweydiinaya inaad explain lagu raado OSI layer muxuu yahay muxuu taagan yahay OSI model aan iraahdo si kale aan u iraahdo OSI model iska functionskooda waa maxay waa 7 layer waxa loo soo gaabiyaa please do not use a piece away kolka laga aqriyo xagga hoose waa physical layer ilaa application layer-ka 7 layer ama waxa la yiraahdaa xagga sare laga soo aqriyo application-ka laga soo bilaaba waxa la yiraahdaa all people seems to need data processing long time ago marka dhigan jiraan FDA marka bal waa la Google garan doona qofkii ku yar cusub tahay marka 7 layer kala sharax baa lagu leeyahay layer kasta ba shaqo qabta waa inaad fahantan tahay markaas kooraska si badan wax badan kaga hadlaymayno laakiin aad u fahan okay what's the purpose of the default gateway ujeedada laga leeyahay default gateway muxuu yahay routerku waa in loo tilmaamo meel xogta ka saaro iyo meel xogta uga imanayso default gateway baa la yiraahdaa default gateway-gaasi maxay ku kala duwan yihiin gateway-yada siyaabo badan oo loo tilmaamo jira laakiin default gateway aan ku soo koobnay inuu yahay albaabkaas haddaba muxuu yahay TCP iyo UDP maxay kala yihiin connection oriented iyo connectionless oriented waxa kala duwan midna port wuxuu u diraa dadka ku hareeraysan oo dhan ama ciddii xogta loo diray ama eega cidiina yihiin xogta ku socotay qaarna wuxuu iska fiiriyaa xogta mid connection ku fiiriyaa inuu ab yahay midna connection without connection iska diraya marka TCP-ga ayaa more advanced marka taayna taqaanin baan rajeynayaa waxa kale oo common su'aalahan xagga router configuration-ka la xiriira and how did you configure static routing on the Cisco router balugule seedu configure garanaysa waa inaad tiraahdo marka physical connectivity marka sameeyo waa inaad raahdo IP route deetana ciidan route garanayaan ogolaanay inay soo gashaan sheegaya halka iga soo galeysana waa sheegaya marka maxay ku kala duwan yihiin sidoo kale in lagu raahdo RIP OSPF EHRP course-keenu si fiican uga hadalay waxay ku kala duwan marka koowaad horta waxay wada yihiin dynamic routing protocol marka labaad sida go'aanka loo qaadanayo ku xidhan tahay kani waa link state kanina waxa weeyaan baan leenahay tusaale ahaan distance factor maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin baa la sheegaya information-ka soo diraan baa la sheegaya EHRP labadooda buu koobsaday waxa la yiraahdaa waa advanced distance factor baa la yiraahdaa okay su'aalaha ku xiga waxa kamid ah network address translation-ka sheeg NAT maxaa tahay baa la iska weydiinaya waxa laga rabaa dynamic hosting configuration protocol wuxuu yahay DHCP ayaa loo soo gaabiyaa sideed IP address-yada automatic compute router-kaaga u qaban karaa waa su'aal lagu weydiin karo iyagana ay muhiim tahay DHCP router-ka sida loo configure gareeyaa taqaani part 3 routing protocol iska loo geliyaa waxa loo oranayaa maxay farqiga u dhaxeeya static routing iyo dynamic routing mid waa automatic dynamic static-gana adiga ayaa baraya kani shaqo fara badan ma baahna kani laakiin shaqo fara badan buu baahan yahay waayo root kasta inaad ku soo dirto kaaga baahan kani meel buu applicable ku yahay waa markaanad aqoonin cidda aad network-giisa ku xidhmaysaa routing protocol-ka isticmaalaysa inaad aqoonin baa la isticmaalaa oo waxa loo leeyahay wax kasta oo halka iga imanaya whatever routing protocol is isoo daabul iyadoo dhanaysa kanina waa dynamic oo isaguna waa automatic marka farqiga u dhaxeeya la iska ka weydiinaya
marka waxa sidoo kale lagu weydiin karaa OSPF configurationkiisa samee waa inaad tiraahdo router rib waa inaad tiraahdo router OSPF 1 2 3 whatever the number aad bixinaysid deetana nadweegina tahdid oo tiraahdo nadweeg 192.168.1.0 wide card bitkiisi waa inaad sheegtid 0.0.0.255 hadduu /24 yahay area-du yahay area 0 ba ama area 1 ba ama area 2 ba area 1 oo backbone area-da ayaa inta badan la isticmaalaa administrative distance-koodu maxay kala yihiin OSPF iyo HRB iyo static waa 1 iyo HRB rib isna meesha ku jiray inaan ku daray rib waa 90 marka way static administrative distance oo maxaad faa'iideynaysaa waxa weeyaan believability-ga cidda sida la isku aamini karo imka tusaalaha saddexdan haddaan laba router ka wada dhaxaysiyo routing protocol ku isticmaalaya static ku noqonaya waa ka ugu administrative distance-ka HRB 120 buu isticmaalaya laakiin isaga wuxuu ka doorbidayaa static ka number 1 ku ka bilaabaya okay waxaad soo kartaa administrative distance-ku muxuu yahay waa course-kan kaga hadlaynaa ka warwari waxa laga rabaa router-kaagu inuu hadduu laba network oo kala duwan ku xidhan yahay oo hadduu midab oo kale uu ku wareegi karo floating static routing baa la yiraahdaa isagana waa in taqaan see loo configure garay hadduu one network down noqdo ka kale uu ku wareegayo troubleshooting ka lagaga baahan yahay show IP route adjacency iyo issues waxyaabahaasi troubleshooting steps ka qodobka inoogu dambeeyo noqonaya waan eegaynaa what's the difference between standard access control list iyo extended access control list maxay kala yihiin waa laba hab oo labadaba lagu secure garay xagga network waxa mid la dooranayaa static baa la yiraahdaa wuxuu dhaxeeyaa 1 ilaa 99 ka kalena 100 buu extended ku ka bilowda 199 buu ku istaaga mid source IP address-ka kaliya la xiri karaa kan laakiin source IP address-ka port number-ka waxa la xiri karaa sidoo kale services-ka protocols-ka waxa soo dhan la xiri karaa haddii la rabo tusaale ahaan in wadanka TikTok laga mamnuuco extended access control list waa lagu xiri karaa waxa kale oo lagu xiri karaa in firewall la isticmaalo su'aasha ku xigta waxa weeyaan ACL-ka waxaad block garaysaa HTTP very important course-ka ugu jirta lab-ka waa kamid lab-ka ku practice gareyn doono access control list-ka router-rada sheeg ba lagu leeyahay isna waa inaad taqaanid Cisco router operation-kiisa troubleshooting-kiisa inaad taqaanid oo cilad saari kartid oo aad syntax ka fahmi kartid static routing-ka iyo access control list-ka inaad fahmi kartid dhanka management-ka ayaa party 5 uu ka hadli doonaa oo waxa kamid ah in user iyo password-ka sida loo sameeyo telnet-ka iyo SSH-ka sida loo configure gareeyo firewall-ka adaad wax su'aalo ka qabtid su'aashu waxa weeye firewall maxaa tahay waa difaaca nadweegeena difaaca wuxuu u kala qaybiyaa wax loo yaqaan Sonis firewall waxa weeyaan waa qaybta difaaceena router-ka waxa uu ah access control list okay port number-ka iyo waxa laga rabaa how did you configure the switch okay su'aasha way soo luntay iyadu switch-ka port security-ga la xiriira laakiin su'aashaasi iyadu way soo luntay ka raali ahaada dabeetana seed backup u qaadaysa backup waxa la yiraahdaa un restoring inaad nadweegaagu markuu ku shaqeynaya inaad ka qaadatid backup-ka laba hab loo qaadaa inaad iska koobiyeysato meel iska dhigatid oo mar dhawaad dib u fiirisid iyo inaad qaadid xog dhamaantii FTP server ahaan inaad uga qaadid file transfer protocol deetana aad meel ku kaydsatid maalintu ka xumaado had FTP server ahaan u soo gali had uga yeedhid oo dib u soo upload gareysid oo system-kaagu ku noqdo sida original-ki marka labadaasiba backup seed u qaadaysaa faa'iidadiisa backup muxuu yahay baa leeyahay ilaa markay dhacdo wax ku xalinaya ayaad leedahay marka waa tool-kan isticmaalaya ciladu markay dhacdo okay waayo system-kayga hore ay ugu jira su'aasha party 6 troubleshooting weeyaan waa cilad saaris Allahumma salli ala Muhammad oo qaybta ugu muhiimsan steps-ka troubleshooting-ka la qaadayo maxay yihiin network connectivity issues-ka labada shay ma isbin gareynayaan dabkii ma ku jira oo reachable device-kii ma yahay device-kii ma daaran yahay device-ka hadda dhex gelishid laarankiisa mooda app ma yihiin waa common interview see loo eegayaa inay app yihiin waan bin gareynayaa trace route baan isticmaalayaa sidoo kale show IP route baan leeyahay static route dynamic route ku doonaba ha ahaato waa common uu ku tusaya waxaad sidoo kale isticmaalaysaa show interfaces show interface fast internet 0/0 show interface gigabytes whatever it is show interfaces-ka wayna taqaanid isagana oo eegi kartid waxa running configuration-ka igu jira
raamka ii hayo iyo waxa starter configurationka igu jira waa inaan kala taqaanid oo sida loo save gareeyana waan baranaynaa sideeda routerka marka core waa common questions marka waxa aynu meesha kaga soo hadalay xabada su'aasha soo luntay mooyaane inta kale waxaan kaga hadlaynaa course-ka hadii Ilaahay dhaahdo marka su'aalo runtii aad applicable u ah oo qofka ay tahay inuu ka sii qaato big picture soo dhawaada